dhegeysta ma daawade ku soo dhawow qaybtii 10aad sheekada la magac baxday qaladkii murugada badnaa. sheekadan waa qiso dhabow dhacday waxa qaybtii 9aad ay noo joogtay familkii oo yimid gurigii loo diyaariyay xilligaasi. Xamse iyo Shamso ayaa ka wada sheekaystay xaalado kala duwan maadaama muddo aysan nasiib u yeelan inay wada kulmaan ama is arkaan. wixii la sheekaystaba Xamse ayaa maalinkii xigay sida caadada u ahayd waxa uu aaday shaqadiisa. Shamso iyo caruurteeda ayaa maalmo badan waxay ku guda jireen la qabsiga jawiga, balse ugu dambeyntii xoogaa yar waxa ay fahmeen jawiga inkastoo aysan luuqadda waddanka baran. Xamse oo farxad badan ay ka muuqato ayaa markasta dareemaya wanaagga xaaskiisa. Shamso oo u mahadcelinaysa saygeeda ayaa tiri, macaane waan ku faraxsanahay inaan mar kale wada joogno hal meel oo aan farxaddeena ka sii ambaqaadi karno. aniga inta aan kala fogeyn waxaan dareemayay cillo badan, balse hadda wax kasta waa ay soo ilaadeen. waxaana dareemayaa guul qiimo badan inaan wada gaarno labadeenna. intaa Shamso markii ay tiri, Xamse ayaa isagana u jawaabay isagoo ku yiri, qaali adiga iyo sidoo kale caruurteena waan wada joogno. waxaan taas ku dareemayaa aniga nafis badan, mana dareemaya hadda walwal iyo cillo badan oo marka hore aan dareemayay. qoyska markaan waxaa ka muuqata kalsooni badan iyo in midowga nololeed ee dhexmaraya qoyska uu yahay hadda mid farxad badan xambaarsan. Shamso ayaa muddo kadib oo uur ay lahayd waxay ku dhashay isla wadankii ay tagtay Holland. cunugeedii 3aad ayay dhashay, waxaana reerka markaan ku soo biiray wiil. hooyada dhashay Shamso ayaa bilowday arrin aysan ku farxin Shamso, balse Shamso ayaa waxaa ka tan weyn mar waliba qiimaha ay u hayso hooyadeeda. maalin iyo habeen ayay hooyada Shamso dhashay waxaa si isdaba joog ah ay ula soo xiriireysay gabadheeda, waxaana sababta ugu weyn ay Shamso u soo wacaysa ay ahayd si ay u dacweyso ninkeeda oo aan waxba ka galabsan isla markaana isaga furto. Shamso wax badan ayay arrintaa ka cagajiideysay, balse iyadoo isla hadlaysa ayaa waxay tiri, aniga muxuu iga sameeyey Xamse? waa qofkii keenay waddankan, waa ruuxaan awlaadda aan haysto u dhalay. allahooyoy reerkayga waan ku faraxsanahay. Shamso markay intaas tiri waxaa guriga soo galay Xamse oo shaqo ka yimid markaasi, balse Shamso durba afkeeda ayaa juuqda gabay. Shamso ayaa cuntadii ay diyaarisay waxay siisay gacaliyaheeda Xamse, kadibna ilmihii ayay seexisay. waxaana markii wax yar ay wada sheekaysteen labadooda qof waliba hurdada ayuu meel la dhacay. maalmo kadib waxaa Shamso si isdaba jooga ula soo xiriirayay isla markaana u soo wacaysa hooyadeed oo ku cadaadinaysay inay iska buriso amaba iska furto ninkeeda. haween ay saaxiib wada yihiin hooyada dhashay Shamso ayaa la jooga waddanka hadda ay ku nooshahay Shamso ee Holland, waxaana maamada haweenka ay taqaana ee saaxiibka ay la tahay ku wargelisay in gabadheeda ay culays ku saaraan sida isaga fogeyn lahayd Xamse. Shamso waxa ugu badan ee loo sheegayo waxay ahaayeen inay iska furto ninka, kadibna ay lacag badan oo ceer ay ku qaadan doonto ilmaha haddii ay Xamse reerka ka fasaxdo. Xamse wax akhbaar ah uma haya xaaladda ku soo korortay xaaskiisa, waxaana uu aadaa shaqada isagoo daalan ayuuna ka yimaadaa. cadaadiska saarnaa Shamso ayaa ugu dambeyntii keenay in familka iyo sidoo kale qoyska xaalad xanuun badan markaanay ka dhex dilaacdo. Shamsona waxay bilowday inay maxkamad ka dacweyso Xamse. miskiin wax akhbaara ma hayo isaga, waxaana Xamse loogu yeeray maalinkii dambe maxkamad iyadoo lagu eedeynayay inuu dili rabay xaaskiisa iyo caruurtiisa isla markaana halis uu ku yahay nolosha qoyskiisa. Xamse isaga oo yaaban misena dhex taagan maxkamadda waxa uu eega xagga ay Shamso isagoona ku yiri, maxaa dhacay? waa maxay maxkamadda aad i dhex keentay? iyada oo Shamso wax jixinjeexa uusan ka muuqan ayay si jeesjeesa ku tiri, waad mutaysatay maxkamadda, nafteennana halis ayaad ku tahay Xamse ee go'aanka maxkamadda ayaan sugaynaa. Xamse ayaa iska aamusay, waxaana maxkamadda ay xugmisay in caruurta ay la wareegto Shamso 3 ciyaal ah, sidoo kalena markaan guri gaar ah ayay wada yeelanayaan. Xamse maxkamadda waxay ku xukuntay in reerkaas uusan ka agdhowaan karin sida ciyaalkiisa iyo xaaskiisa oo markaan maxkamadda go'aan ay ka gaartay haddii uu ka agdhowaadana waxaa loogu hanjabay in xabsi dheer uu ku mutaysan doono xaaladaasi. tala fara ayay ka baxday markaan. Xamse isagoo yaaban ayuu yiri, tani waa adduunyo, maxaan galabsadaa aniga? waa ayo cidda ka dambaysa falkan? Shamso miyaa sidaan?
igu noqotay. Intaa Xamse markuu yiri waxa uu dhaqaaqay meel uusan garanaynin, balse waxa uu u jihaystay jiha ka duwaneed halka qoyskiisa ay aadeen. Shamso iyadoo si uun u dareemaysa in go'aanka hooyadeed ay jecleed ay samaysay ayaa tiri, waan ka fogaaday Xamse, luuqadda waddanka si fiican uma aqaano, aniga iyo carruurteennana waxaanu noqonnay dad isbahaysta xilligan. Hooyo arrinta ay la jecleed waan u fuliyey. Intaa markii ay Shamso tiri, iyada iyo carruurteeda waxay u soo dhaqaaqeen xagga iyo gurigeeda. daawade ama dhegaysta inta ah ay noo joogto qaybtii 10aad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. Inta qaybta xigtaan ku wada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.